بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعشر كي لحاد كتاب كي ألفيها أها أن عشر كاني هو روحا أغسو شاكيني يكي كسي هوريا دمات كيسا كي كسي هوريا أفراد دمات كيسا وحا أغسو هدلني وحيالها أصوشا أهو وحلقو قده فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين aan ku soo dhamayna casharkii shanaad bilowgiisa waxaan uga soo sheekaynay qayb ka mid ah waxyaalihii lagu icraabayay icraabka ka naa'ibka ah usuusha markaas ayaa waxaan ka soo hadalnay asmaa'ul khamsa maalan waxaan kaloo ka soo hadalnay muthanna iyo wixii la haleeshiiyey hadda waxaan casharkan uga hadli doonaa jamac mudakaru saalim iyo wixii la haleeshiiyey ayaa casharkeenu ka bilaaban doonaa sidii aan muhanne alif in lagu godo ya-na lagu kordhigo ya-na lagu hoos dhigo uga soo hadalnay ayaa jamac mudakaru saalimna waaw lagu godayaa ya-na waa lagu kordhigayaa ya-na waa lagu hoos dhigayaa jamac mudakaru saalim marka laba u qaybsamaa inuu yahay magac oo qof magac u ah iyo inuu yahay wax sifo ah oo tilmaamahoo qofkii wax samaynayo isim faacil oo kale ah labadaasba waxaa lagu godi doonaa waaw waxaa lagu kordhigi doonaa ya waxaa lagu hoos dhigi doonaa ya wixii jamaca wadadiisa ku yimaado shuruuddii laga waayana waxa weye waxaa lagu godi doonaa laguna kordhigi doonaa laguna hoos dhigi doonaa ya wuxuu yidhi warfac god biwaawin waaw ku god haye xaggee god ah beydka shadrigiisa dambe u bood saalima jamci caamirin caamir qofka la yiraahdo ninka la yiraahdo caamir waa calam jamaciisa kiisii nabad galay waaw ku god wa mudnibin iyo kii dambaabay kan waa sifo ilaa calam iyo sifo inuu yahaa niri kii dambaabay jamaciisa kiisii nabad galayna waaw ku god wa biyajrur wansibi wajruur hoos dhig saalima jamci caamirin wa mudnib mudnib iyo caamir jamacooda kiisii nabad galay hoos dhig biyaa-in ya ku hoos dhig wansib kordhig biyaa-in ya ku kordhig saalima jamci caamirin caamir iyo mudnib labadooba jamacooda kii nabad galay marka hadda waxaan ka hadlaynaa jamcu waxaan ihi jamc mudakaru saalim ee ragga jamci nimanka ka hadlaya ee saalimka ahaa laba qayb wey inuu yahay calam oo qof magaciis yahay sida caamir ninka la yiraahdo iyo inuu yahay sifo oo mudnib kii dambaabay qof magaciis maha waa sifo labadaba waxaa lagu godayaa waaw waxaa lagu kordhigayaa ya waxaa lagu hoos dhigayaa ya sidii aan u dhihi jirnay jaa zayduuna ra-aytu zaydiina marartu bizaydiina sidaas wey markaas marka haddii uu yahay calam maalanba waxa weye inuu yahay calam qof mudakarahoo nina uu calam u yahay caaqil uu yahoo qof caqlila uu yahay khaalin min ta'niith ka maran tarkiib uu ka maran yahay intaas markii shuruuddaas laga helo shuruuddaas iyo faahfaahinteeda sharax ugu noqo ma doonayna inuu naga dheeraado casharku shuruuddaas oo mudakar yacni caaqil ah ta'niith ka maran tarkiibna ka maran uu noqdo calamkaas waxaa lagu kordhigayaa waaw waxaa lagu godayaa waaw jaaa caamiruuna aan lena nimankii caamiriyaalahaa yimid haddii uu yahay sifo ayadana oo sidoo kale ah wasfi mudakar oo nin ah ku saabsan haddana caaqil ah haddana taa-u ta'niith ka maran wasinkiisuna afcal oo mu'anafkiisu faclaa yahay uusan ahayn ama uusan faclan oo mu'anafkiisu faclaa uu yahay uusan ahayn kii mudakarka iyo mu'anafka ku sinaana uusan ahayn asagana waa mudnib oo kale waaw ku god ya-na ku hoos dhig ya-na ku kordhig ixtiraaska shuruuddaas sharxa ugu laabta oo faahfaahinteeda ka dhagaysta si uusan kitaabku nooga badan marka maxaan leenahay waxaan rabnaa horta jamac waa inuu yahay waxaa ku baxay mufradkii haddana saalim waa inuu yahay hadduu jamcu tagsiir yahay asaga kaas wuxuu gelayaa dhan kaleu gelaya oo asaga xarakaa la ecraabaya jamcu tagsiirka sidii rajul oo rijaalun lalahaayoo kale halkaas haddii la jajabiyo binaau mufradihi uu nabadgeli waayo asaga xaraku aadayaa ee xaraf shaqo kuma leh marka warfac god saalima jamci caamirin caamir jamciisa kiisii nabadgali ku god sheikhu hadda wuxuu sameeyey shuruuddii ma sheegin laakiin isim shuruuddii laga helay uu
isticmaalay oo caamir oo calamkiiya iyo wasfi laga helay shuruuddii oo mudniba labadaasu isticmaalay. caamir iyo mudnib jamacooda kiisii nabadgalay waaw ku god wajrur hoos dhig biyaa-in ya ku hoos dhig saalima jamci caamirin caamir jamciisa kiisii nabadgalay wa mudnibin wansib kordhig biyaa-in ya ku kordhig saalima jamci caamirin wa mudnib. labadaasba marka labadaasba shuruud badanay leeyihiin. shuruuddaas waa sheegnay maalanba iyo ixtiraaskeeda iyo faahfaahinteeda ugu noqo sharaxa kitaabka markaa matniga fahantid. adoon matniga fahmin ha isku dhibin shuruuddaas, ha isku taataaban shuruuddaas adoon matniga fahmin. wa shibhi dayni labadan oo mudnib iyo caamir ah wixii shabahana jamacooda kiisii nabadgalay waaw ku god ya ku kordhig yana ku hoos dhig. wasaalima jamci shibhi dayni mudnib iyo caamir wixii shabaha labadan oo mudnib iyo caamir ah wixii shabaha jamcooda kiisii nabadgalayna ayagana waaw ku god ya ku hoos dhig ya ku kordhig. labadan wixii shabaha waxa weeye wax kasta oo calama oo mudakar magaca u ah caaqil ah ta'need ka maran tarkiibna ka maran, ama wax kasta oo wasfi ah oo mudakar ah caaqil ah ta'need ka maran afcal oo facla ah ku yimaado muanaskiisu aan ahayn faclan oo facla muanaskiisu ku yimaadaan aan ahayn mudakar iyo muanasna aysan ku sinayn waxa weeye asagana waa ku god ya ku hoos dhig yana ku kordhig. marka labadan wixii shabaho jamci shuruudda laga helo ka wada kow oo wasfi iyo calam ah. wasfi iyo calam ah labadaas wey. sifo calam yani waa qofka magaciis wixii ah, sifana wixii ku tusina isimkii faacilo caadiga ah weye awsaaftii. waayahay hadda jamci intaasuu shuruuddiisa ku joojiye ixtiraazaadkiisana sharax ugu noqonay. hadda waxaan gelaynaa mulxaqaadkii jamca waxyaalihii la haleeshiyey ee shuruudda aan laga helin oo shuruuddii badneed hadda soo tixaynay aan laga helin. wa bihi 20 waa baabuhu ulxiqa wuxuu yidhi wa ulxiqa wuxuu yidhi wa 20 wawga qaado bihida ka bood wa 20 kelimada leeraa 20 iyo wa baabuhu 20 baabkiisa ulxiqa waa la haleeshiiyey madkuurkaas bihidii u laabo bihi jamac mudakaru saalima la haleeshiiyey oo waase 20 iyo baabkeeda 20 waa 20 soo maahan 30 oo soddonkii baabkeeda ah ilaa 90 laga gaaro 20 30 40 50 60 70 80 90 hakada. tirsigaas maaragtay oo 30 ilaa 90 laga gaaro baabkii 20 ah ayagana jamca haleeshiyo haddaad icraabaysid waa ku god هذه 20 تاني و20 و30 و40 و50 و60 و70 و80 و90 haddii aad kordhigaysid ya ku kordhig ra'aytu 20 و30 و40 و50 و60 و70 و80 و90 dheh. haddaa hoos dhigaysid ya ku hoos dhig marartu ب20 و30 و40 و50 و60 و70 و80 و90 dheh. saas ya ugu hoos dhig si jamci oo kale. marka 20 iyo baabkiisa jamca la haleeshiyey maxaa mulxaq ka dhigay shuruuddii aan laga waayo. shuruuddii aan laga waayo hadda caaqil ma ahan kow sifana ma ahan calam ma ahan ka wada calam ma ahan sifana ma ahan waaye calam ma ahan wasfina ma ahan marka saasaa looga waayey. sidoo kalena mufrad ma tusinayo oo hadda 20 waa 20 haddii la dhihi lahaa 10 oo 10 ah mufrad u ah mufradka markii la isku dardaro jamac markii la rabo saddex ka bilaabana marka 10 oo 10 iyo 10 kale 10 iyo 10 kale 10 markii la isku daro 30 ay ka bilaabanaysaa 20 ba meesha ma soo gasheen marka mufradna ma tusinayso mufradkeedana ma tusinayso. marka maadaama 20 iyo baabkiisu uusan ahayn calam uusan ahayn sifo mufradkiisana uusan tusinayn shuruuddii laga waayay laakiin i'raabka jamaca la haleeshiinay markaasuu ku yiri 20 kelimada leeraa 20 iyo wa baabuhu baabkiisaas oo 30 ilaa 90 laga gaaro ah ulxiqa waa la haleeshiyey huwa madkuurkaas bihi jamc mudakaru saalim waa la haleeshiyo waaw ku god ya ku kordhig ya ku hoos dhig waa ka tagin. wal ahluuna ahluun kelimada leerahdana ayadana jamaca ayaa la haleeshiyey iyo
waxa weeye jamc mudakar saalima la haleeshiyey xagaa laga haleeshiyey waxaa laga haleeshiyey in waaw lagu godayo ahluuna iyo ahluukum in laleeyahay ahluu oo waaw lagu godayo in ya lagu hoos dhigayo ahliina laleeyahay ama ahliikum laleeyahay in ya lagu yani macnaha ya lagu hoos dhigaya ahliikum yana waa lagu kordhigaya ahliikum yana ku kordhig yana ku hoos dhig waawna ku god marka waa ahluuna wal ahluuna ahliin kelimada la yidhaahdana ayadana jamaca la haleeshiisiyey maxaa yeele ahluun waa ismu jinsi lera oo jaamida calam ma ahan oo magaca ma ahan wasfina ma ahan sida darteed marka maadaama wasfinimadkii calamnimadkii laga waayey shuruuddii jamca way buuxi weysay laakiin icraab ahaan jamca la haleeshiinaya oo wal ahluuna jamca la haleeshiisiyey wa ulxiqa alahluuna biljamc uluu kelimada la yidhaahdana ayana jamca la haleeshiisiyey uluu jamca la haleeshiisiyo waa lagu godayaa ya lagu hoos dhigayaa ya lagu kordhigayaa maxaa yeelay mufrad male uluu waa bimacnaa asxaab walaa ya'tali ululfadli uluu a laleeyahay haddii la kordhigayana uli a laleeyahay haddii la hoos dhigayana uli ya lagu hoos dhigaya labada jeer yana ku hoos dhig yana ku kordhig waawna ku god oo uluu dheh maxaa yeelay mufrad ma leh oo jamca waxaa shardiya inuu mufrad leeyahay oo zayd iyo zayd oo la isku daray oo zayduuna laleeyahay ay tahay marka uluu ma leh mufrad maadaama aysan mufrad lahayn ayadana waxaa la haleeshiisiyey jamca icraab ahaan laakiin jamc maaha wa caalamuuna kelimada la yidhaha caalamuunana ayana waxaa la haleeshiiyey jamca wa caalamuunana waa la haleeshiisiyo icraabka lagu haleeshiisiyey oo wow lagu godo caalamuuna laleeyahay ya lagu hoos dhigayo caalamiina alxamdu lilaahi rabi alcaalamiina yana lagu kordhigayo caalamiina laleeyahay maxaa yeele mufrad ma leh oo haddii maaragtay la dhihi lahaa caalam mufrad u ahaa caalamka hadda adduunka dhana leera markii la isku daro waxbaba ma soo kordhinayso marka caalamku inuu kasii gudan wen yahaaba imaan kartaba marka caalamuuna wow ku god ya ku hoos dhig yana ku kordhig marka jamca la haleeshiisiiyey mufrad maadaama aysan lahayn wa caalamuunana jamca la haleeshiisiinaya ciliyuuna kelimada la yidhaahdana jamca la haleeshiisiinaya oo waxa weeye ciliyiina qur-aanka waata lafi ciliyiina ku jirta ayadana jamca ayaa la haleeshiisiinayaa oo waawaa lagu godayaa jamc mudakar saalim sidiisii oo kale ya lagu kordhigaya ya-ana lagu hoos dhigaya maxaa yeele ciliyiin waxay magac u tahay meesha jannada ugu saraysa marka kelimadan macno ahaan waa muanath mudakar ma ahan kow oo jamc mudakar inay taha la rabay marka maadaama mudakar ay noqon weyday kow haddana caaqil ay noqon weysay oo hadda waa meel magaceed ayana jamca la haleeshiisinaya xagga icraabka ee jamc maaha waaye ciliyuunana jamca la haleeshiisinaya oo ciliyuuna wow ku god ciliyiina ya ku hoos dhig yana ku kordhig wa araduuna kelimada leeraha araduun ayaduna shadda waa shaadowda araduunna waa shaadowda oo araduun waa shaad oo wow ayaa lagu godayaa waxay khilaaftay qaacidadeedii horta ayado calam ma ahan kow ardun oo dhulkiiya ardun oo dhulkiiya oo araduuna lagu jamciyo wey marka kow ma ahan calam wasfina ma ahan mudakarna ma ahan caaqilna ma ahan mufradkiina ma waafaqinba oo xarakada waa ku khilaafto araduuna a laleeyahay ardi waa ti ra-du reebaneed marka intaasoo dhan maadaama ay ku jirto waa shaad hadda icraabkan lagu icraabaya araduuna iyo aradiina in waaw lagu godo yana lagu kordhigo yana lagu hoos dhigo shaad ahaan ay ku noqonaysaa qiyaas kuma ah wa araduuna kelimada la yidhaahdo shadda waa shaadowda wasinuuna kelimada la yidhahdo siniinna ayana iyo wa baabuhu siniin baabkiisuna asna shadda waa shaadooba oo siniin iyo baabkeedu ayana waa shaadowdo ayadoo shaadaha la icraabayaa laba icraab ay leedahay icraabka koowaad waa in jamc mudakar saalim wadadiisa la haleeshiisiiyo oo la yidhaahdo waaw lagu godo ya lagu hoos dhigo yana lagu kordhigo hadihi sinuuna ra-aytu siniina marartu bisiniina la yidhaahdo
marka siniina iyo sinuuna yani ya lagu kordhigaya laguna hoos dhigaya waawna waa lagu godaya. baabka oo maaragtay sinuuna waxa weye waa isim kasta oo thulaathi oo saddexa laamtiisiina la jaray lagana soo ciwad qaatay taau ta'niith ta'niithka marbuudada aana tagsiir la gelin sida mi'atun iyo thubatun kuwaas waxa weeye ayagana icraabkaanay marayaanoo waa shaadoobayaanoo maxaa yeele calamna ma ahan sifana ma aha calamna ma ahan sifana ma ahan marka wuxuu ku yidhi wasinuuna kelimada leeraa sinuun iyo wa baabuhu baabkiisu shadda waa shaadoobay oo waxa weeye wadadan icraabka jamco la marsiinaya shaaday ku yihiin waa yahay. wuxuu kaloo noo sheegayaa oo macnaha ah wow lagu godo yana lagu hoos dhigo yana lagu kordhigo wuxuu noo sheegayaa wado kaloo icraab kaloo ay leeyihiin. markaasu wuxuu yidhi wa mithla xiinin qad yarid dal baabu marka waxaad tidhaahdaa wowga qaado qad yarid u bood wa qad yaridu inuu soo arooro ayaa dhici kartaa daakan albaabu baabka ah baabkan oo sinuun iyo baabkiisa sinuun iyo wixii la midihi inuu soo arooro ayaa dhici karta mithla xiinin oo kale inuu ku soo arooraa dhici karta. oo hadda waxaan soo sheegnay shaad inay ku tahay in waaw lagu godo ya lagu hoos dhigo ya lagu kordhigo. waxaa dhici karta in ay galaan meel kale oo ayana shaad ku yihiin oo soo aroorta dhici karto ayadana oo xiinun la icraabo sida xiinun oo kale icraabkeedii oo kale oo waxa weeye hal ataa cala alinsaani xiinun soo laba godin ilaa xiinin soo qur-aan kuma jirto. xiinun xaraka la icraabaya xaraka caadiyaho in tanwiin lagu godo laguna hoos dhigo yani damo lagu godo kasrana lagu hoos dhigo fatxana lagu kor dhigo. sidaasoo kale in siniina loola dhaqmo ayaa dhici karta ayada sidaasoo kale ayadoo wadata xarafkii wadata siniinan iyo sinuunun in la yidhaahdo aa dhici karta. markaas wuxuu yidhi waqad yaridu inuu soo arooraa dhici karta daakan albaabu baabka ah mithla xiinin oo kale inuu ku soo aroore aa dhici karto damo lagu godo yana lagu hoos dhigo damo lagu godo fatxana lagu kor dhigo xiinan sideedii oo kale kasrana lagu hoos dhigo. wa huwa baabkan oo sidaan in loo icraabo ahna yataridu qiyaas ayuuba noqdaa cinda qowmin qolo agteeda qolo nuxaadda ka mida agteedana qiyaasuuba ku yahayba shaad kuma ahan qolaaba ayba taas agteedu saas in la icraabo siniina iyo baabkeeda ayba oo sidii xiinan la marsiiyo ayba qiyaasayba agtooda ku taha. halkan hadda wuxuu noo sheegayaa nuunta oo jamac mudakaru saalim ku jirta oo maalan ba markii caamiruuna aan niri iyo mudnibuuna nuunta u dambaysa horta waxa weye waa ciwadun can itanwiini fi lismi lmufrad tanwiintii bedel ka tahay laakiin nuuntaas waxaa sida caadiga ah la yaqaana waa inay kor dhignaato nuunta muhanahuna inay hoos dhignaato wey sida caadiga loo yaqaano. markaasuu wuxuu ku yidhi wa nuuna majmuucin wamaa bihi ltaxaq faftax wowga halkaas u qaado fa'das faaulfasaaxa la yidhaahda waa iska ziyaado waftax kordhig nuuna majmuucin dib usoo laabo kii la jamcinayo nuuntiisii kordhig caamiruuna iyo mudnibuuna dheh wamaa kii nuuntiisana kordhig iltaxaqa haleelay bihi jamaca haleelay oo cishruuna halaahuuna ahluuna waxaasoo dhan nuuntooda kordhig ciliyuuna nuuntooda kordhig waftax kordhig nuuna majmuucin kii la jamcinayo nuuntiisa kordhig oo mudnibuuna iyo caamiruuna iyo zayduuna dheh nadaas u dambayda wey wamaa kii nuuntiisana kordhig iltaxaqa haleelay bihi jamacii haleelo jamac mudakar saalim haleelo cishruuna iyo baabkeedii ahluuna iyo ciliyuuna iyo caalamuuna kordhig waa dhammaata warkaas. waqalla waxaa yar hadda wuxuu noo sheegaya waxaa dhici karta inay soo aroorto ayadooba la hoos dhigayo. marka wuxuu yidhi waqalla waxaa yar man qolo ayaa yar dad nataqa ku dhawaaqay bikasrihi nuuntaasoo la hoos dhigo oo carabta qayb ka mid ku dhawaaqdaaba la arko arbaciini iyo tiri marka warkaas waa war iska naadira maahan yani qiyaaska caadiga ah la yaqaano. waqalla waxaa yar
man nataqa qofkii ku dhawaaqay bikasrihi nuunkaasoo lahoos dhigo 40 tiri waa wax naadir aho yar taas waa jamc mudakar saalim xaalkiisii muthanaha asaga nuuntiisu waa hoos dhigantaho zaydani iyo zaydayni ay ahayd marka wuxuu ku leeyahay wa nuunu maakii nuuntiisa thuniya la labee oo muthanaha nuuntiisa iyo walmulxaqi wa nuunulmulxaqi kii la haleeshiiyey bihi muthanaha la haleeshiiyey nuuntiisuba istacmaluuhu carabtii waxay u isticmaaleen iyo culummadii nuxaadu markay ka hadlayaan carabi waxay nuunkaas u isticmaaleen bicagsi daaka adiga kaas cagsigiis dabagediskiisiyo jamci cagsigiisa jamc maxaan ku naqaanay nuuntiisa in la hoos dhigo muthanahana nuuntiisa yani waxaan jamca ku naqaana nuuntiisa in la kor dhigo zaydina leera muthanahana hoos dhigo waxaa tiraa zaydani deh marka wuxuu yidhi wa nuunu maa thuniya kii la labeeyey nuuntiisa iyo walmulxaqi kii la haleeshiyey bihi muthanaha nuunta muthanaha la haleeshiiyey nuuntiisaba zaydani iyo ithnaani iyo wixii la haleeshiyey waa ithnaani iyo ithnatayni labadaba in la hoos wuxuu yidhi istacmalu carabta way isticmaaleen hu madkuurkaas bicagsi daaka adiga kaas oo jamcii cagsigiiso jamca kordhig soomaana soo dhihin faftax soomaana soo dhihin kan hoos dhig sidoo kale waqala man bifatxihi nataq waxaa yar dad oo hoos dhigay kordhigay oo waxaa la arkay ayagoo la kordhigaa la arko caynaana iyo layiri caynaani meeshii la dhihi lahaa qolo kordhigtana waa la arkay ayadana waa naadir fantabih ku baraarug yiri arrinkaas ku baraarug marka hadda jamc mudakar saaliman ka hadalnay labadii nuun oo nuuntii jamca iyo muhanihii nuuntiisana waa ka hadalnay hadda waxaan ka hadlaynaa markii aan soo dhammaynay jamc mudakar saalim xukumkiisa aana ka soo hadalnay labadii nuunood oo nuunta jamc mudakar saalim iyo nuunta muthanaha aana sheegnay waxay ku kala duwan yihiin jamcana in lahoos dhigayo la kor dhigayo markasta ilaa naadir ma ahane muthanahana in la hoos dhigayo ilaa naadir ma ahane hadda waxaan ka hadlaynaa jamc muanathu saalim jamc muanathu saalim markaasuu wuxuu yidhi wamaa bitan wa alifin qad jumica wamaa bita wa alifin qad jumica yuksaru fi ljari wa fi nasbi maca wamaa isimkii qad jumica la jamciyey bitaa in ta lagu jamciyey iyo wa alifin alif lagu jamciyey yuksaru waa la hoos dhigaa isimkaas fi ljari marka la jarayo kasraa la saaraa macnaha wa fi nasbi marka la kor dhigayana kasraa la saaraa macan wada jir labada jeerba maalanba muslimatun soo maahan haddii la godayo waa damo waxaa leedahay jaaءat muslimaatun gabdho muslimaadaha yimid ama haaulaai muslimaatun kuwan waa gabdho muslimaada waxaa kaloo la rabaa markii la kor dhigayo ra'aytu muslimaatin kasraa lagu kor dhigaya kasraana lagu hoos dhigaya ho marartu bimuslimaatin kasraa lagu hoos dhigaya marka waa yahay waxaan kitaabka yani icraabka markaan soo bilaabayna soo ogaanay wixii asalahoo dhan waa ka soo baxnay farfac bidamin wansiban fatxan wajur kasran aan soo niri hadda wixii kasro lagu hoos dhigaahi waa asal muxuu hadda halkan usoo celiyay asalkii oo kasraha ah fatxada waa garanoo fatxadaani waxay naaib ka tahay yani kasradii naaib ka tahay laakiin kasradan hadda wuxuu u sheegay oo marka la hoos dhigayo in la kasrinayo wuxuu u sheegay wuxuu rabaa fatxada oo lagu kor yani fatxada kordhiga waqtigiisii yani kasrada saaran waqtiga kordhiga inay lagu xambaarayo inuu noo cadeeyo markaas wuxuu ku yidhi wamaa isimkii qad jumica la jamciyey bitaa ta lagu jamciyey wa alifin alif lagu jamciyey oo muslimatun muslimaat hindun hindaat alif iyo ta kii lagu jamciyey yugsaru waa la hoos dhigaa filjari marka la hoos dhigayo xaalatuljar yugsaru waa la kasriya kasraa la saaraa filjari xaaladii jarka kasraa la saaraa oo waxa weeye
marartu bimuslimaatin aleeda wa fi nasbi marka la kordhigayana kasra la saaraaho ra'aytu muslimaatin aleeda ama ra'aytu lmuslimaati macan wada jir labada jeerba yacni waa kasro wax lagu icraaba laakiin labada kasra waa kala bedelan yihiinoo marka la hoos dhigaya kasrada saarani waa asal marka la kor dhigayo kasrada saaranna waxa weeye waa naa'ib oo waxay naa'ib ka tahay fatxo ay naa'ib ka tahay marka saasuu u sheegaya ho meeshan yani asalkaas wuxuu usoo celiyey midaas asalka ah in wax lagu xambaarayo inuu caddeeyo kasrada halkan hadda wuxuu noo sheegayaa mulxaqaadka jamc mu'anathu saalim sidii muhanihii aan mulxaqaad ugu soo sheegnay jamc mudakaru saalimna aan mulxaqaad ugu soo sheegnay ayaa jamc mu'anathu saalimna wuxuu leeyahy mulxaqaad oo ah yani kuwo aan shuruudii laga helin lakiin icraabkiisa qaadanaya markaas wuxuu yidhi kadaa ulaatun ulaatun kelimada ulaat la yidhaahdo wa ulaat laxmaal so qur-aanku ma jirin kadaa waxay la mid tahay jamacii isim ta'da iyo alifka lagu jamciyey ay la mid taho icraabka ay kala mid tahay oo ulaat ma leh mufrad ma leh ulaat saaxibaad oo kale wey macno ahaan hadday rabtoba saaxibatun macno ahaan ha noqotee ha lahaata mufrad xagga macnahe laakiin xagga lafdiga mufrad ma leh maadaama aysan mufrad lahayn shuruuddii jamca lagama helin shuruuddii jamc mu'anathu saalim lagama helin waayahay laakiin icraabkiisay qaadanaysaa hoo jamc mu'anathu saalim maxaa ku godi jirtay dammo kan dammo ku godo ulaatu dheh maxaa ku hoos dhigi jirtay kasro maxaa ku kor dhigi jirtay kasro wadadii marse marka wuxuu yidhi ulaatu kelimada ulaat la yidhaahdo kadaa isimkii ta'da iyo alifka lagu jamciyo oo jamc mu'anathu saalima ay la mid tahay hadda meeshan wuxuu noo sheegayaa jamac aan soo niri maalan jamci gabdhaha badan ka hadlayay aan soo niri ee saalimka ah haddii ka waran la helo kelimo jamac ahayd sida guud laakiin hal qof loo bixiyey ama hal meel loo bixiyey waa adricaad ta iyo alif ay wadataa soo maahan laakiin magaalo ayaa magac looga dhigay adricaad xukumkeedu muxuu yahay ayadana sida jamci mu'anathu saalim a loo icraabaya jamcaas mu'anathu saalim oo alifkiiyo ta'da lagu jamcinayay haddii magac qof looga dhigo ama magaalo magac looga dhigo icraabkiisii oo kala la siinaya markaasuu wuxuu yidhi waladii isman qad jucil waladii isimkii oo jamc markii hore ahaa qad jucila laga dhigay isman magac cid lagu magacaabay ee suuratuljamc leh ka adricaatin waaba kelimada adricaad la yidhaahdo oo magaalo magaceeda daa kan oo icraabka ah oo yani kasro labada jeerba kordhig iyo hoos dhigiiba kasro la saaro ayaa qubila la aqbalay huwa icraabkaas fiihi isimkaas oo jamca ahoo cidda lagu magacaabay icraabkaasa la aqbalay aydan sidii jamcoo kaleba marka wuxuu yidhi waladii jamci markii hore shaygii jamca ahaa qad jucila laga dhigay isman magac meel magac looga dhigay sida adricaad oo kale magaalo magaceed wey oo shaam ku taalla adricaad markaas magac looga dhigay ee suuratuljamc leh muuqaal jamc leh adricaad iyo muslimaat hadda isku egyi soo maha daa kan alicraabu icraabka daa kan oo icraabkan ah ee kasre labada jeerba lagu hoos dhigo haddii la fadxinayo iyo haddii la kasrinayaba ayaa qubila la aqbalay huwa icraabkaas fiihi isimkaas magaca laga dhigay ayaa kasre lagu aqbala labada jeerba aydan sidii jamci oo kaleba sidii jamci oo kale marka labadan bayd maxaan ku ogaanay jamc mu'anathu saalim godkiisa damaan kusoo godayna lama soo celin laakiin kordhigiisana waa kasraa la saaraa oo lagu kordhigaa hoos dhigiisiina kasraa la saaraa labada jeerba kasraa la saaraa waayahay wixii la haleeshiyo ulaatu ah ayana jamca wadadiisa marsii haddii jamci laftigiisa yani shay muuqaalkii jamcla magac laga dhigana asna wadadiisa marsii saddexdaasaan ku ogaan casharkeena intaasaan ku joojinaynaa wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh